buuni waxaa fashilkiisa kugu sugan waa saaqidkii jaamacadda camuud laga soo eriyey buuni markii uu GPA-giisa gaari waayey ama GPA-gii uu gaari waayey grade-kii loo baahnaa uu gaari waayey dhibcaha buuni wuxuu noqday in jaamacadda drop out laga siiyo ku-xigeenka xogayaha ganacsiga ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo cabdirashiid warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa wuxuu si adag uga jawaabay hadal maalintii sharaad ka soo yeeray afayeenka xisbiga talada dalka ee kulmiye Cabdinaasir Buuni kaasi oo ahaa eedeymo u sheediyay murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana ku-xigeenka xogayaha ganacsiga ee xisbiga wadani oo afayeenka xisbiga kulmiye Mr Buuni uu ku tilmaamay inuu yahay mid siyaasadda ku fashilmay waxaana hadaladiisii kamid ahaa 10 sanadooda leh karaamo iyo maamuus iyo milgo madaxnimo leh halkii la ka ixtiraami lahaa oo ka xishoon lahaa buuni oo Soomaaliya madaxiisa ay saartay lacag $5,000 oo firdhadkiinta Soomaaliland soo galay xisbiga u cidna ku fashilmay siyaasadiisii marka uu kala sheekeeyay xisbiga u cid iyo xisbiga kulmiye oo madaxtooyada ah inuu kala sheekeeyay buuni taa wixii ka dambeeyay buuni wuxuu yimid hoggaanka xisbiga wadani isagoo codsanaya inuu ku soo biiro anagoo og bad image-ka ama sawirka xun ee laga haysto inuu ognahay buuni waa la diiday hoggaanka xisbigu inay qaabilaan oo xisbiga ku soo dhaweeyaan buuni wuxuu tagay xisbiga kulmiye han iyo himilo iyo rajo uu abuurayna ma jirto isagoo kaga gabanaya madax furashada iyo kiiskaas dul hoganaya iyo ceebaha dul hoganaya iyo dhaliilaha dul hoganaya ee madaxiisa la dul dhigay oo ayna ogeyn firdhadkii xisbiga kulmiye wuxuu galay si aan loo xidhin buuni waxaan leeyahay isa soo cadee waxa weeye adigoo ceebahaasi ku dul hoganayaan inaad madaxda qaranka ama madaxweynaha maalmaha dhow in sida preparedka inta lacag lagugu soo shubto lagu yidhaahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo dalkan wuxuu soo gashaday la og yahay mas-uulkii saddexaad ee qaranka muddo 10 sanadood ahaa lagu yidhaahdo cay kii adigu waxaa ku hadli lahaa ma tihid dib iska hubsan ka odhan lahaa buuni waxaa fashilkiisa kugu sugan waa saaqidkii jaamacadda camuud laga soo eriyey buuni markii uu GPA-giisa gaari waayey ama GPA-gii uu gaari waayey grade-kii loo baahnaa uu gaari waayey dhibcaha buuni wuxuu noqday in jaamacadda drop out laga siiyo ilaa yawmin hada waxaan tilmaami karaya wasiirka hore oo xukuumadda kulmiye maaldhood wuxuu sheegay in la isticmaalay isagoo aad u yar buunina wuxuu ka mid yahay dadka imika xisbiga kulmiye isticmaalayo welibana waqtiga kooban se preparedka uu isticmaalayo kaataasaan kaga gudbayaa buuni waxaan u gudbayaa khudbadii madaxweynuhu shalay uu ka jeediyey jaamacadda Hargeysa madaxweynaha qaranka waxa leeyahay madaxweyne siyaasiyiinta Soomaaliya tagaa ha iskugu keensinaadaan oo isku mid haynoo noqdaan siyaasiyiinta Soomaaliya taga waxaynu u naqaanaa niman shaqo tegey oo inaga shaqo tegay oo calooshadu shaqaystayaal ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan matalin mudane madaxweyne meel ha ku wada joogaan baan ku leeyahay siyaasiyiintaasi shalay waxa igu soo duulayay madaxweynihii qaranka oo Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan oo jaamacadda Hargeysa asaaskeedii iyo buddigeediiba iyada iyo qoyskooda ay lahaayeen inuu madaxweynuhu sheegay inay halkan xaadxaadhay oo xamar in la tagaana ay tahay wax lala yaabo madaxweyne wax lala yaabo waxa ah marka dadkii qaarna xidho qaarna aad xamar u dirtaan aad eriyataan oo markay xorriyadda qowlka waayeen mayd maxaa u dambeeyey iyo kaa la sii sido nuuraddiin colijoog oo saxaafadda hadda ay hor taagan milgaha iyo maamuus kale ka tirsanaa markuu waayey goob uu ku soo bandhigo mihnadiisa saxaafadeed wuxuu go'aansaday inuu Somaliland gooraan habeenna ahayn maalinna ahayn uu ka huleelo waxaan ku tilmaami karaa nuuraddiin colijoog inuu ahaa nin dhalinyaro ah dalkiisa iyo dadkiisa ku kalsoon dadkiisa dalkiisa aaminsan inuu nuuraddiin isagoo xamar jooga uu ka soo hadlay oo yidhi madaxweyne maxaad igu soo eriyatay madaxweyne maxaad waddankayga iga soo fogeysay meel aanan rabin madaxweyne maxaad ii keentay waxa ayaan darro ah madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu shalay dhalinyarada uga hor qudbadeeyo qofka xamar tegay waan la yaabanahay oo qof aan caadi ahayn madaxweyne isdhagayso waa dadkii adiga ka cararay waxaad nasiib darro ah kuwa kale oo maanta xabsiyada ku xidhani berri markay soo baxaan waxay samayn doonaan garan mayno waana midhihii iyo intifaacii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dadkii la ilaalin lahaa xuquuqdooda dastuurkoodii ayaa damaanad qaaday saxaafadda waxaan tilmaamayaa madaxweyne soo daa kuwa xidhanna kuwa xamar tegayna cafis u samee mushkiladana adigu bay ka bilaabmataa adigaana kugu dhamaata waxa wax lala yaabo ah oo shacabkii Soomaaliland la yaabeeyeen
madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan ee la rabay doorashooyinkii somalilan inuu ka hadlo 13 Noofembar inay dhacdo inuu ka hadlo inuu ku mashquulsan yahay doorashada 15 May xamar ka dhacaysa madaxweyne inooma taala taasi inaga tayna inoo taala dalku maanta badbaadu kaaga baahan yahay doorashada xilligeedii ku qaba madaxweyne inta tiisaba daryeelata kala madaxweyne ku dara inta doorashada xamar ka dhacayso aad u hanqal taagayso waxaan ku leeyahay mudana madaxweyne somalilan baa doorasho u baahan shacabka reer somalilan waxyaalaha adduweynuhu inagu faano iyo midhahaynu iibgeyno waxa kow ka ah waa nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku madaxweyne hadday inoo dhacaan legasiga aad ka tegaysa ama dhaxalkaad ka tegaysaana wax wanaagsan buu noqonayaa somalilanna 2 sannadood oo muddo kordhina dhawaqana soo gaaraya waa extension waxa loo hamiye digleeyahay oo madaxweynuhu odadka u gelinayo guddidii doorashooyinka qaranka waxa loo hamiye digleeyahay waa extension madaxweyne muddo kororsigu adiga dankuuma aha laakiin wuxuu dhibaato iyo hagardaamo iyo dhib ku yahay waxa weeyaa waa aaminaadii qaranka jamhuuriyadda somalilan beesha caalamka iyo nidaamkii isku tanaasulka is aaminaadii doorashooyinka ayuu meel ka tuuraya waxaan ku leeyahay madaxweyne doorashada wakhtigeedii ku qabo doorashaad lagaa rabaa 13 Noofembar doorashaa lagaa doonaya shacabka reer somalilan waxay qaateen nidaam kii doorashooyinka ee xisbiyada furan bay qaateen iyagoo nidaamkii qabiliga ka tegey nidaamka doorashooyinkuna wuxuu dhigayaa mudane madaxweyne kastaa 5 sannadood markay dhammaadaan muddaxileedkiisu inaanu extension samayn uu albaabka ka baxo rabitaanka shacabka madaxweyne ciddii la rabay marka ay timaado madaxweyne waxaan ku leeyahay doorashada wakhtigeedii ku qabo xilligeedii doorashada inoogu qabo waxaan u soo jeedinayaa shacabka reer somalilan meel kastoo taageerayaasha xisbiga wadani joogaan anigoo ka duulaya dhawaqii musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro inay dhagaha u taagaan oo u dhib taagaan dhawaaqyada ka soo bixi doona labada xisbi ee mucaaradka ah oo maalmaha inagu soo foodale ka hadli doona arrinta doorashooyinka somalilan waxay heerkaa ku gaadhay waa doorashooyin madaxweyne